gudoomiyaha wanaag farida iyo xumur reebida Sheekh Muuse Jaamac Abdi ayaa ka hadlay arrimo ku waafaqsan diinta Islaamka taasoo uu ka hadlay arrimo dhowra waxaanu sheegay masaa'ibta dabka ka dhacday gobolka Sanaag in Ilaahay baqtiyo hase ahaatee dadweynuhuna dhinac uga soo jeegtaan sidii lagu gurman lahaa dabkaasi waxaanu sheegay sidii la isugu ilaalin lahaa macsida iyo dunuubta waxaana hadaladiisi ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa TV-ga qaranka saaka halkan nagu soo booqday waxaan ka hadlaynaa laba qodob qodobka ugu horeeya waxa weeye musiibada saaka ka socota buurta daalo ilaa xalay ilaa shalay galab socotay dabka ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa inuu Ilaahay naga baqtiyo oo Ilaahay awoodiisa naga qabto dabku waa musiibooyinka waaweyn uu ka mid yahay Ilaahay naga baqtiyo cidii ku waxyeelowday maaragtay kulli dhimasho lama soo sheegine hanti badan waa la sheegayaa ma xawayaan markaa hanti iyo dhaawacyaba waa la sheegayaa marka wixii ku dhaawacmay iyo wixii hanti ku baabadena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa inuu Ilaahay naga caawilo inta u gurmatay marka juhdiga siisana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr waxaanan faraynaa dhammaan in maaragtay la gacan siiyo dadka ay dhibaatada ku dhacday walaalaheena dabkaas uu qabsaday kulli dadaalkiisana waa lagu jiraa waxa kaloon baraarujinaynaa in loo duceeyo oo dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo bariyo Ilaahay dhibta inaga qabto qodobkaas waa qodobka dabka ku saabsan qodobka labaad ee sheegayna walaalayaal waxa weeye dhibaatooyin fara badan baa jira abaara jira oo imka inagu baahay oo sanadkan aad u badan xanuuno badan baa jira oo dadkeena laga yaabaa inay maaragtay ay ku dhex jiraan dabka imka isaguna dhibaato soo kordhay baa jira dhibaatooyinka adduunyada iska fara badan maxaa u sababa maxaa keena maxaa laga gudbayaa su'aasha inay dadku isweydiiyaan oo ay gartaan ayaa muhiim ah maxaa yeelay Ilaahay baa yiri subxaanahu wa ta'ala wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kathiir Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wixii idin ku dhacay idin asiiba waa waxa kasbateen waliba Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala wax badan baa idinka cafiyay dhibaatooyinka Ilaahay baa keenay laakiin waxay ku yimaadaan sabab marka waxa weeyaan inaka naga timi oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu dambi iyo gaf ka galay oo Ilaahay caasinay waxaan leenahay ummadda gaar ahaan bulshada reer Somaliland Ilaahay inuu toobad keeno dhibtu way badanaysaa hadaynan Ilaahay u noqon meela aynaan marka ka filayno way ka imanaysaa wax aynu wadi karayna iyo waxaanu qaban karayna ma jiro hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ka eedeysanahay Ahmed Maxamed Cawaale iyo Khadar Xanuur TV-ga qaranka Somaliland Hargeysa.